guurtidu markii uu qiimeeyay abaarta baahsan ee ka jirta dalka iyo sida ay saamaynta weyn ugu samaysay dhammaanba dad iyo dunyaba iyo waliba sicir bararka bulshada naafeeyay markii uu qiimeeyay muddada lagaga bixi karo duruufaha taagan iyo wakhtiga ugu habboon ee doorashooyin dhammaystiran ku qabsoomi karayaan markii uu arkay warqaddii madaxweynuhu u soo gudbiyey golaha guurtida ee tirsigeedu ahayd inta kuna taariikhaysan ee uu ku kala qaaday labada doorashooyinka madaxtooyada iyo tan golaha wakiilada golaha wakiiladuna ansixiyey maxkamadda dastuuriga ahayna ayuday markii uu arkay qaraaradii maxkamadda dastuuriga ah ee ujeedooyinkoodu kor ku xusan yihiin golaha guurtidu isaga oo ka duulaya qodobka 83 faqradiisa 5 iyo qodobka 42 faqradiisa 6 ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland isaga oo tixgelinaya kuna go'aan qaatay dhammaan asbaabaha kor ku xusan wuxuu soo saaray go'aamadan waxaa muddaxileedka madaxweynaha eegstay 20 bisha afraad 2017 lagu sameeyay muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 28 bisha afraad 2017 kuna eeg 13 bisha 12aad 2017 golaha wakiilada oo dhammaadka muddaxileedkoodu ku eeg yahay 28 bisha afraad 2017 waxaa lagu sameeyay muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 28 bisha afraad 2017 kuna eeg 28 bisha afraad 2019 waxaa muddaxileedka golayaasha deegaanka oo ku eeg 28 bisha 11aad 2017 lagu sameeyay muddo kororsiimo ka bilaabmaysa 28 bisha 7aad kuna eeg 28 bisha afraad 2019 doorashada golaha wakiilada iyo doorashada golayaasha deegaanka waxay qabsoomayaan isla hal waqti bay qabsoomayaan ahna bil ka hor dhammaadka muddaxileedka loo kordhiyey muddaxileedka golaha guurtidu wuxuu noqonayaa hal sano kadib muddaxileedka golaha wakiilada wabillahi tawfiiq أفر إيو تضباط الحلبان باقلابي حلبان نواديدي أنا ما عضيدين ثلاثة كوان تحت